gudoomiye koow waxaan qabaa xeerkani inaanu bislaanin darajadii goolaha uu ku soo gaari lahaa dood lagaga geli lahaana inaanu gaadhin mudanayaashii wada dooday qodobadii ay ka hadleen oo dhan markaan ka yimaado anigu gees kalaan ka eegaya waxaan arkayaa xeerku inaan aragtidii garyaqaanada gooluhu ayna xoog uga muuqan xeerkan waa xeer taabanaya marka ciidanka laga yimaado sharciga oo salkiisu uu yahay xukun baadhis ciqaab oogid garsoor marka xeerashan oo kale goolaha la keenayo dee gooloweynuhu farsamo ahaan iyo aragti ahaan waaqica inay xildhibaanadu doodooda ku dhiibtaan mooyaane in si sharciya loo falanqeeyo marka hore guddida gacanta ku haysayna ka soo bislaysay ahayd garyaqaanada golaha jooga oo aqoon sharci leh marka waxaan markaa doodayda sidaa u leeyahay bisaylkii uu ku iman lahaa gooloweynaha xeerku muu gaadhin anigu waxaan qabaa taa maxamed xasan garyaqaanku sheegay oo ah xeerka nidaamka garsoorka iyo xeerkan in la isxusiiyo sababahan u leeyahay muu gaadhin darajadiisii waxa kow ka ah bartan qodobka 6 firqadiisa 3 xeerku wuxuu sheegayaa in hay'adan ciidanka ee garsoorka ay madax bannaanaato oo dhexdhexaad noqoto isla xeerka gudihiisa ayaa wuxuu sheegayaa in garsoorayaasha marka gudoomiyaha maxkamadda laga yimaado uu magacaabayo madaxweynuhu oo maxaa haytay uu noqonayo garsooraha maxkamadda ciidanku mid magacaabista madaxweynaha ku yimaado marka gudoomiyaha maxkamadda sare laga reebo qodobka dastuuriga ee sheegaya structure-ka garsoorka dalka ee 104 maxkamadda sare iyo xeer ilaalinta qaranku waa taa hadda jirto ma loo ictiraafsay marka madaxweynuhu xubin kamida garsoorayaasha maxkamadda magacaabayo de waxay ka dhigan tahay iminka maxkamaddan sare dastuuriga ee dalka marka gudoomiyaha golayaashu ansixinayaan laga yimaado xubnaha kale garsoorayaashii saacadda madaxweynuhu u eri karaya sida wasiiradiisa iyo agaasimayaasha guud u eri karaya marka dhexdhexaadnimadii iyo madax bannaanidii meesha ka baxday kan u lamid waxa de nuglaanshaha xeerka inoogu filan oo xildhibaanadu aad uga hadleen in gooloweynaha la keenay qof darajadiisu ama da'diisu tahay secondary school deena ka dhowr 20 jirkii secondary school buu dhigtaa waxaan la yiri xeerku hadda uu qodobkani sheegayaa inuu noqonayo shuruudaha garsooraha lagu qaadanayo inay da'diisu tahay 25 marka dhibta ugu badan ee maxkamadu xaliyaan waxa kamid ah dilkaasi sidee suuragal ku tahay iyadoo baadhis iyo waqti ay u baahan tahay waxa dhibta ugu badan ciidamada ka dhaca dil ay tahay madaxa la iska toogto nabara khatar la isku dhufto arrimo horara oo argagax la galayo ina secondary level inuu dil ka garnaqo waa dhaliisha koowaad ee uu leeyahay waxa kale oo iyaduna meesha ka maqan baarayaasha maxkamadaha iminka gudoomiye marka la tago garyaqaanaduna waa ogyihiin ee doodafeedka ama garmaqalka maxkamaddu bilaabmato kiisas baa jira 30 sano loo xalay oo la isku haysto bartay ka soo qaloocsantay xeer ilaalintana maaha garsoorkana maaha qareenkana maaha waa baaraha saldhigay ka qaloocsantay marka baarihii khalday dacwo 25 sano ama 30 sano maxkamad ku jirta oo intaasoo rafcaan la qaatay intaasoo xukun intaasoo dib u eegis ka dhacday inaana ciidankii lagu soo qorin meesha la yiraahdo la oran baarayaasha ciidanka waxa kale iyaduna meesha ka muuqata gudoomiye garsooraha qofka eedeysanaha qareen buu qabsan karaya eedeysanaha ciidankii wuxuu qabsanayaa qodobka 9aad firqadiisa 5aad wuxuu leeyahay wuxuu qabsanayaa qareen rayidi markuu dood ciidan iyo sir ciidan gacanta ay u galayso ee maxkamad ciidan uu ka doodayo waxa xeerkani leeyahay firqada 5aad qodobka 9aad xeerku waa inuu xogta ilaaliyo
hadduu xogta ilaalin waayo ciqaabteeba isaga ka ratimaysa oo ku dhalanaysa hadduu xogta ciidanka bixiyo qareen rayidii sa duruufta keenaysa in qareen rayidii maxkamad ciidan falkeedu u galaa maxay tahay anu waxaan isleeyahay intan oo dhan iyo inta xildhibaanadu sheegeen baa dooda aynu ku gabagabayno guddida cadaaladda iyo garsoorka iyo guddidan ciidanka qaabilsan iyo garyaqaanada goluhu xeer bisil oo labadaa xeere xeerka nidaamka garsoorka iyo xeerkan in la iscunsiinayo in golaha la keeno waqti aan laynagaga lumin markaa shuruuddu xeer ku noqon lahaa intaan la gaarin shuruuddii lagu doodi lahaa baanu xeerkani wadanba ani taladeedu markaa waxay tahay guddoomiye dib ha loo celiyo barta ha lagu joojiyo wax bisil golaha ha la keeno guddidan soo qabanqaabisay ee golaha keentena waxaan isleeyahay way ku soo degdegeen markaa doorka garyaqaanada ee goluhu maadaama garyaqaano ciidda ka badanoo aqoon wanaagsan sharciga ula ay nala joogaan xeerasha golaha la keenayo doorkooda iyo aragtidooda sharci guddoomiyaha ka muuqato haddii kale waxay noqonaysaa maanta oo dhan in la doodo la yidhaahdo xildhibaan hebel baan secondary ku ahay siduu xildhibaan hebel sheegay bartaasaa muuqata dhaliilahaasaa jirta